ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali Daa'ih ayaa maanta xilka u kala wareejiyay wasiirkii hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Doctor Maxamed Cilmi Ibraahim iyo wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada xildhibaan Yuusuf Maxamed Aadan oo dhawaan ka mid ah wasiirada cusub ee xukuumadda ay magacawday. Sidoo kale waxaa xilka la wareegay wasiir dowlaha cusub ee wasaaradda xildhibaan Cinaanshe Yuusuf Xuseen waxaana munaasabadda xil wareejinta ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo shaqaalaha wasaaradda. ugu horeen waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Yuusuf Wadani isagoo soo dhaweeyay marti sharafkii ka soo qayb galay. kana ku faraxsanahay inaad goobjoog u ahaataan xil wareejinta wasiir dowliyaasha wasaaradda iyo wasiirada sidoo kale kelimada aan leeyahay waxay ahayd soo dhaweyn inaad ku soo dhaweeyo halkan waan idinkaga mahadcelinaynaa waqti badan kama qaadan doono waxaan la joogo wasiir wasaarada ku-xigeenka jamhuuriyadda marka aad iyo aad ugu mahadsantihiin. sidoo kale xildhibaan Ifraax Noorey wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Ismaan Libaax Ibraahim ayaa dhankooda hambalyo u diray wasiirka cusub ee wasaaradda. xilka cusub ee loo igmaday awalka wasaaraddu ka mid ahaa in ilaahay u fudaydiyo walaalkay xildhibaan Maxamedna shaqada meeshuu soo gaarsiiyey uu si fiican uga sii wada haddii ilaahay ka dhigo howlaha shacabku oo ay u igmadeen ay u hayaan waan soo dhaweynaynaa waanan idin ku baarigaynaa insha Allah. wasiir kasta markuu yimaado hal sana lumaysa laakiin hadda waxaa yimid wasiir dowladda ka ah taasaan nasiib ku leenahay waxay la mid tahay wasiir maxamed cilmi oo nala joogay la mid tahay runtii wasiir cilmi si la sheegay wax badan oo qabtay hal sana iyo 4 bilood uu joogay wax badan oo qabtay shuruucda ugu badan inta asaga joogay la gudbiyay runtii waa tabi doona. wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaan Maxamed Cilmi Ibraahim ayaa ka warbixiyay howlaha muhiimka ahaa ee u qabsoomay intuu xilka hayay. sharaf gaara ayay ii tahay maanta hal sano iyo 4 bilood ka bacdi inaan xilka wasaaradda oo la ii idmaday waqtigaas in aan maanta halkan ku wareejiyo sharaf gaar ii tahay. weli waxa sharaf gaar ah inaan ku wareejiyo xilkan saaxiibkay oo aan muddo soo wada shaqeynay sanad iyo 4 bilood maalintan wasaaradda ku soo biiray wasiirka hore ugu wareejinayay anigana igu soo dhaweey meesha maanta waa laba xafladood in wasiir cusub soo biiro iyo in wasiirka cusub soo biiray uu yahay wasiir wasaaraddan hore u soo joogay oo aan waqti badan kaga lumi doonin haddii alla ilaahay inuu wax badan ka fahmo ama wax badan ka ogaado shaqada. dhanka kale wasiirka cusub ee maanta xilka la wareegay xildhibaan Yuusuf Maxamed Aadan ayaa ballan qaaday inuu la imaan doono wax qabad muuqda. wadan waxaan joognaa u shaqeynaynaa oo dadkii ay niijabeen oo dowladnimada ay ka niijabeen because waxay dareemaan kaliya habladu isku wareeji ay dareemaan ogey tangible products ama tangible results natiijooyin la taaban kara dadka meesha ugu hoosay ay dareemi karaan weli maanan gaarin. marka anna ilaahay waxaan ka baryay inuu ifududay waxaad dareemi karteen fiiri maala dhalinyaro oo boqolkiiba intaas ah aanan shaqaynayn qof kasta wuxuu dareemaa marka maala dowladda uu ka niijabaa wuxuuna dareemaa qof daalow dareemaa laakiin ilaahay waxaan maala aan weydiin inuu ifududay waxaanan ballan qaadaa arrimahan caqabadaha jir inaan hallin doono annagoo kaashan doono ogaaleyda wasaaradda oo ugu horeeya la taliyaasha iyo waxyaa iyo qof kastoo waxtar u ah oo waajibkan ila qaadi kara. ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka Cabdisalaan Cabdi Cali Daa'ih. wasiir cilmi intii uu joogay iyo intay soo shaqeynaysayba in horumar badan la gaaray oo ay ka mid tahay shuruuc maadaama aan ahay mudane baarlamaan ka tirsan shuruuc badan oo wasaaradda leedahay aan baas garaynay waxay halkaa ku caddeynaysaa wasaaradda inay directionkii wanaagsanaa u socoto. intii aanan shaqada iman waxaan ogahay in la diiwaan geliyay dhammaan shaqaalihii ku meel gaarka ahaa oo ayada ay ku guuleysatay oo halkaasayta wax badan oo discrepancy iyo dayacnaan ka jirtay xagga shaqada ah horumar badan laga gaaray. wasaaraddu maadaama ay muhiimaddaas u leedahay dalkuna dhalinyaro ku badan yihiin madaxdeedana dhalinyaro tahay waxaan u rajeynaynaa wasiirka cusub mudane Yuusuf in ilaahay la garab galo oo sida uu sheegay maalinta uu halkan soo istaagi doono uu wareejin doono shaqaalaha dalka jooga ay at least boqolkiiba 30
kusoo korodha hadduu allah awoodda la yidhaahdo. Rooda Xasan Taakile, warbaahinta Goobjoog, Muqdisho.